hagaati haween baan hadima beerin hogyo buuran la eedo haween baa hooda sheegta haween baa sama u hesha haween baa qaran hagaati haween baan hadima beerin hogyo buuran la eedo halbowla horumarkeen iyaga weeyaan hubaale erkii nabadaynu joogno la'aantood lama helenba la'aantood lama helenba halbowla horumarkeen iyaga weeyaan hubaale erkii nabadaynu joogno la'aantood lama helenba la'aantood lama helenba yeelato muxuu yahay networkan maxay tahay sababta laga leeyahay asaaskiisu muxuu ahaa waxyaabahaas oo dhan inay naga jahli bixiso walaasha sareedo waa founder of Somali Gender Justice waana qofta kaliya aanu runtii noo ah baal muxuu haytoy hal doorka ama muxuu haytoy maxaan dhahaa wax aan ku tilmaamo ma garan karo sareeda aad baa u mahadsantahay soo dhaw sareeda bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما أنت وحنا هل كان يسووني معني وتعارف بانو يسووني مت أجندة أبوين أنو كلا النهاي نتوركين كان وتعارف مركا سؤال هذا أدب أمها تنتين نسوء جيبتين دمركو أدب أمها تنتين نسوء جيبتين رجوا آد بأمها تنتين نسوء جيبتين وأي سببت تهاي سينما جار أحبه أباهن تهاي إن آد elected Somali women leaders رجوا ده leaders كأمه أقدر قبلها مركا إن رجع قاركيس thank you so much إن آد أركتان women leaders هذانا آد نسوء جيبتين آد بدأمها تنتين إن شاء الله كم حل رانا يا شرحات women leaders لأنه الأستاذة سمية عبد القادر يا أستاذة سعدية عبد الصمد إن شاء الله تعالى وحين نشرح دونان قابب كلا دوان نوجو شرح دونا يجوا إسلامي perspective كثيرنا يا يجوا كثيرنا يا دور هواينكو كسوقاتين بالشدة الصوماليات بدبادين تاني Somali women network سائلين شيء ونتورك ربع إنه إسكو حرا بطلان كليا معها لها صفي عن غفرة معها بطلان كليا سيدا أن always نقعنا وحوي قبل والبوح إسكو كوبا ماشى وجوبه وحن ربنا إن كبحنا حدود ديرته عن إسكو قفلي لأنه سيدا أنا بنا هي كل جاي وحنا هي ضد ولا لا Somali مركل ويراهدو متى هيد وطن وين أو بلارن وحتى هي one rare وحنا هي كل جين هالقيس وقعد ولي بقير يعني لبيه 8 مليون مركز في رئيس الدولة لها وطن كأدوك كجرا ما أنت أفريقيا كلا تكجرا قعد بقير تهاي 12 13 ووحير حتى هذا 16 17 هاي ديدين وحوي قعد بقير تهاي مركز وحن ربنا إن نقطة ميل يسكو برتو يقبلوه يسكو برتان لأن الرجل سياسة ده يسكو برتان وبرلمان هذا يسكو أركان أنو كويرنا هاي أنو ودمر كويريين أو وحوي ميل يسكو أركان بيليين لكن قبلوه وحوي جوريجا تسكالكا شقادة جوريجا مركز وحن ربنا إن سمينه بلاتفورم أنكو شاكيسنا كو حلنا بروبلمز كنا أنكو صوبان بيجنا محايين عقبتها صوماليا هايستا محاسة كقابن كرنا وإحنا كبدلي كرنا هرتا discussion نوعاس أو كلاتا إن آيالا نبانو باهنا هاي سيدا أدوكتيهين هو يدو وبالشدة بركات لكن waxa idin leeyahay waa bulshada dhan hooyo waa bulshada dhan hadaan hooyo jirin bulsho ma jirteen sida awgeed waxaan rabnaa dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed insha Allah taala inay platform kan uu noqdo platform ay isku arkaan manihin koox isu timid oo oranaysa waxaan soo dhicinaynaa xuquuq dumar waxaan nahay koox aaminsan inaan xuquuq ka maqnayn waxaan nahay koox
waxaan nahay koox aaminsan inay sareeyaan waxaan nahay koox aaminsan inay iyagu haldoor yihiin waxaan nahay koox aaminsan inay hal qof wax bedeli karo waxaan nahay koox rabta in ay Soomaaliya ka bedesho waxa weeye dhibaatada ay maanta ku jirto kana qayb qaadato page cusub oo Soomaaliya ay furto bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay hoggaankaasina wuxuu ka bilowdaa annaga wiil iyo gabarba hooyo iyada waxay korisaa generations ka soo baxaya ama wiilal ha ahaadaan ama gabdhaha ahaadaan haddii marka hooyadaasi dhisan tahay haddii hooyadaasi ay mataqaanaayay dee wacyigeeda iyo fikirkeedu uu yahay mid ka dharagsan baahida jirta waxaa imaanaysa bulsho mutakaamil ah dhammaystiran oo waxa weeye baahida taalla xallin karta waad aragteen social mediada Soomaalidu social mediada waa ku murantaa wax kale kuma qabsato way isku caydaa qabiil bay isugu riftaa madaxdooday ku caydaa waxa weeye waxba kuma soo kordhiso waxbana kuma bedesho social mediadu waa silaaxdu xadayn af wanaagsanna waa leeyahay af xunna waa leeyahay marka ma aha inaan anagu u isticmaalo afka xun oo kaliya networkan wuxuu isku dayayaa inuu u isticmaalo dhinaciisa bal wanaagsan wajigiisa iijaabiga ah inuu fiiriyo oo uu ka isticmaalo hooyada Soomaaliyeed 30 sano oo la soo dhaafay waxa weeye waa 9% iyo waxaan oran karnaa 5 badbaadiyay ummadda waqti aan dawlad jirin dhibaatooyin badan ay jireen hooyadii soo badbaadisay weeye sida awgeed baan waxaan culayska u saarnay in aan Soomaali women la hadalno qasdigeena ugu weyn oo ugu ballaaran oo aan ku soo gabagabaynayaa wuxuu yahay baahinta doorka ay haweenku ka qaataan ama ay ka qaadan karaan horumarinta bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantihiin hiba waxay isiisay 10 daqiiqo laakiin hadalku waan boobsiyaa soo dhameeyay aad baa u mahadsantihiin waxaan dareemayaa inay naga jahal saartay Somali Women Leaders Network iyo waxa uu yahay